maamulka gobolka togdhrer bahda majaajilaystayaasha iyo ururada hidaha iyo dhaqanka gobolka togdhrer ayaa magaalada burco ku soo dhaweeyay abwaan faarax murtiile oo kamid ah abwaanada reer Soomaaliland waxaana ay kaga hortageen duleedka magaalada burco waxaana markii uu halkaasi abwaanku soo gaaray hadallo soo dhaweynaa ka yiri barasaabka gobolka togdhrer majaajilaystayaasha Sooraan iyo Jawaan iyagoo si kal iyo laab ugu soo dhaweeyay magaalada waxaan isagana si wanaagsan soo dhaweynayaa saaxiibkay walaalkay mar qurb joog baan isku marna saaxiib gaar aan isku nay waa fanaan waa muallif waa la xamiiste inta uu isugu jira waa heesaa waa daawatay ma filaya waxaan filayaa in uu wax badan ku soo kordhin doono gobolka aad iyo aad baan faarax ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay imaatinka uu na soo gaaray faarax murtiile oo ah runtii abwaan ku xeel dheer dhaqanka Soomaaliyeed oo aanu ka lumin meel kastuu joogaba ilaaliya waxaanu leenahay ku soo dhawow abwaan wadankaagii dalkaagii hooyo kan maxaan maanta u soo baxnay oo farxadan iyo shashaadan muuqato waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka togdhrer oo barasaabka imka dhinacayga taagan iyo abwaankii faarax murtiile oo aanu leenahay welcome with open the hands geestiisana abwaan faarax murtiile ayaa isna ka mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyay raxiim assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay farxad weyn iga muuqata boqol farxadood iska shibay iga muuqata wadankayga hooyaan ka soo noqday magaaladeedii baan imi hooyaday aabahay baan u imi ducaan soo doontay waxa dhaqan baan soo doontay waxa kale farxad labaad ah saaxiibaday oo Sooraan Jawaan ku soo dhaweeyay Ingiriiska oo maanta iyagu halkayga hor yimi waxa kale farxad dheeraad ah saaxiibkay walaalkay oo gobolka togdhrer weegi soo socday looga dhigay barasaab maxamed ibraahim aadan qabo waxaan leeyahay anigoo daltabayo u darsaday dhulkayga qurbihii daashaday ayuu baa dareenkay dan iyo ogaalkay damirkaygii boodo istiyaar wada jira degdeg ugu keeneen waa diyaarad caane markaan daalo soo garay waxay duusha socoto marba ila degayso dawraha sabaysaba halkaan ku soo degay madalkayga hooya madaxdii togdhrer ba madalkaan jeclaaba intaasi kadib waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada burco iyadoo uu ku tagay aqalka madaxtooyada ee burco waa cabdisalaan axmed caawad cabdi Germany shabakada caalamiga ee Garadag News burco.